kulanti waxana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo xilligan oo kala ka daawataan telefishinka Universal toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka waayaha nolosha tayada cuntooyinka iyo dawooyinka Soomaaliland yimaada ma yihiin qaar ku haboon in la cuno sidayse u hubisaa hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland waxay jirtaa muddo 28 sano ah ma jirin muddadaasi meel kantaroosha oo hubisa tayada cuntooyinka iyo dawooyinka imanaya waxaana sanadkii 2010 dhidibada loo taagay hay'adda dhowrista tayada waxaana noqotay mid aan awood badan u lahayn inay hubiso tayada cuntada taana waxa sababay iyadoo aan lahayn laabkii lagu baadhi lahaa hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland sidee u hubisaa tayada cuntada iyo dawooyinka dalka imanaya waa kan gudoomiyaha hay'addaasi Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo sharaxaya qaabka ay u hubiso dabcan kulay alaabta date-ka waxa dhacay shaygu markuu dhaco waxay qayb ka tahay in tayadiisu ay hoos u dhacdo laakiin waxa jira alaab iyadoo aan dhicin oo tayadeedu hooseyn karto alaabtaas oo ama sifo khalad lagu soo sameeyay ama markii la sameeyay lagu sameeyay muxuu ahaa wax tayadoodu aad iyo aad u hooseyso oo jaban oo dabadeed aan manfac badan lahayn marka alaabta dalka soo gasha date-ka qura ma jeegarayno ama calaamadda aan tayada ku hubina ma aha taariikhda oo qura siyaabo badan baan u jeegarayna oo hubina tayadooda siyaabahaas oo muxuu ahaa cilmiyeysan baa jira oo checklist baa jira aanu shay kasta ku eegno oo visual inspection wax leeyahay aanu sameeynaa araga waxaanu sameeynaa testing intii awoodayada ah oo baadhis baan u dirnaa mashiinaan ku laboratory aan ku baadhna haddii muxuu ahaa alaabtu ay alaab muxuu ahaa aad tayadooda looga shakiyay tahay ama alaab muhiim ay yihiin sida dawooyinka iyo cuntooyinka qofka bini'aadamku wuxuu cunayay waxaanu adeegsanaa laabo kale oo caalamka waxa aanu la shaqeyno madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay qorshaha 5 sano ee soo socda ee hay'adda dhowrista tayada ayaa sheegay in cudurrada uu kansarku ka mid ka yahay ee ku soo badanaya Soomaaliland ay sabab u tahay cuntooyinka aan wanaagsanayn tayadoodu liidato ee dalka la keenayo وأكتينو إمك دكتورada hada wareysato waxa ay soo farabatay cudurka kansarka oo loo marinayo inuu ka yimaado cuntada aynu cunno qaar kamid ah oo aan ku habboonayn in bini'aadamku cuno waxa inagu soo batay carruurta hawada dadka waaweyn waxa la yiraahdo xasaasiyadda ama samboorka oo loo tirinayo qalabka guryaha dhigano iyo bahashan dawooyinka ku buufina guryaha iyo qalabka loo tirinayo waxa ka muuqata da'deena yar inay wax iska bedeleen qaab nololeedkeena iyo cuntadeena oo dhalinyaradeena iyo dadka waalidkooda hadda eegto xitaa qaab ahaan way kala duwan yihiin waxaana loo tiriyaa tayada cuntada soo gasho waxa loo baahan markaa in hay'adana ay xoog badan saaro si loo ilaaliyo tayada waxaynu cunayno waxaynu huwanayno waxaynu goglanayno iyo qalabka isticmaalno waxa kamid ah shidaalka oo aad ogtihiin dhibaatada ka jirta gaariyaasha wadana aan gaarin rubuc cimriga baabuurta kale ee dalka lagu wato loona tilmaayo tayada shidaalada aynu ka shubno iyo habka lagu shaqeeyo iyo baabuurku markuu imanayo oo aan cidina soo jeegarayn qiimaha uu leeyahay cimrigiisa wanta oo hadhay iyo tayadiisa iyo mashiinada isticmaalooda telefoonka oo la cabiro codka ka soo baxay iyo rayska imanaya inta dhagaha bini'aadamka yeelaan cidina oo cabirtay carruurteena 24 saacadood ama indhaha ku hayaan ama dhagtay ku hayaan deetana inay soo laabto gaadhi baa indhaheena sii waxaa soo dhawaaqay inay ilaaliso Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdilaahi iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Muuse Xasan ayaa iyagu qaba in aan lagu sargoyn karin cuntooyinka iyo dawooyinka dalka la keenayo inay sabab u noqon karaan cudurrada uu kansarku ka mid ka yahay maadaama oo aan lahayn daraasad buuxda oo lagu xaqiijinayo inay arrintaasi jirto horta ma jirto xarun inuu qaabaysan inay ururso macluumaadkaas taasina runtii
lagu saleeyo kaysaska ama xaaladaha la kulmo mooyaane way adagtahay masalan in tira raahno tira inta leeg ba sanadkan ina soo martay qoladana jirin xarun u gaaro macluumaadka hornaysa laakiin marka la eego suuqii iyo dadka ama dibadaha tagaya ama aan la kulmin aad bay u fara badan yihiin waxyaabo badan runtii waddankeenan dhib badan oo jira waxaana kooka masalan adduunka ummad kasta waxay leedahay hay'ad qaabilsan inay kantaroosho cuntada dawada iyo biyaha marka inagu waxa la wixii maanta xanuunadii meelaha ka yimaanay oo dhan ma lihin controlka waxaana aasaas oo in la helo waxa loo yaqaan quality control laboratory shay baar qaabilsan cuntada iyo biyaha oo lagu eegayo marka kol haddii aynan xaqiijinayn waxa la yiraahdaa dawooyinka haddii la sameynayo waa laga yaabaa in dawooyin ahaysan lagu soo sameeyo waxay ku xiran tahay kulleyba shakhsiyadda ruuxan ka ganacsanaya مثلا waxa la dawooyinka kala saddex qaybood ba dadku u codsadaan inuu u codsado heerka waddanka in lagu saleeyo ama standardka waddanka national standard bay yiraahdaan waxa kale oo lagu saleyn karaa sub standard inuu ka hooseeyo heerkii markaa waddankaasi oo haddii dibadaha loo saarayo kale ay doonaan codsan karaan ruuxii masalan ka ganacsanayay iyo ruux international standardska heerka caalamiga ay taageen marka inaga dhibka ugu weyn ee waxa weeye nooc alla nooc ay tahay cid xaqiijin karaysa ma jirto kol haddayna maanta shay baadhkii la marinaynin waxaan aaminsanahay runtii inay tahay mas-uuliyad dowladeed waxaa la yidhaha amniga biyaha iyo cuntadu labadu waxa weeye waxay la mid yihiin amnigan kale dowladdu qabanayso marka waa in la helaa runtii quality control laboratories inagoo hela mooyaane anigu sidaan aaminsanahay ma odhan kara dawadana khaldan ma odhan karta cuntadana khaldan laakiin walba cid kastoo cadow kuyi waxaan aaminsanahay inay ka faa'iidaysanayso wax kastoo ummadaada ama cunto ha noqoto ama dawo ha noqoto ama biyo ha noqotee wax kasta oo lagu samaynayo ama lagu caafimaadkooda lagu waxyeeleynayo ama tijaabooyin lagu gelinayo intaba masalan haddii waxyaabo cilmi baadhisoo la samaynayo intaba meel si sahlan looga fulin karayo ayayna kol haddii aanay jirin qalabkii loo baahnaa kol haddii aanay jirin mas-uuliyadda cid gaar ah oo iskale kolley xanuunada marka la sheegayo ama loo muxuu ahaa asbaynayo tayada muxuu ahaa cuntada ama dawada waxay u baahan yihiin iyagoo cilmiyeysan in marka hore la xaqiijiyo ma hayna anagu research ama baaris cilmi baaris dhab ah oo sheegaysa muxuu ahaa in xanuunadan badani ay sabab u tahay ama xanuunadan soo badanaya imika nagu cusboonaanaya ay sabab u yihiin alaabo muxuu ahaa ama dawooyin ama cunto ay cuneen oo sababtay anagu researchka ma hayno laakiin waa mid hay'adda laftigeedu ay ka hawlgalayso oo aanu la kaashanayno laamaha dawladda ee ay wasaaradda caafimaadku kow ka tahay way wasaaradda caafimaadka u xil saaran qiimeynta bulshada caafimaadka ilaalinta caafimaadka guud halka marka haddii uu ka soo baxo oo la leeyahay shay ama alaab tayadooda hooseyso ayaa sababay caafimaad darrada soo badatay ama xanuuno khaas ah waxay u baahan yihiin xaqiijin iyo dabagal bay u baahan yihiin laakiin waxaynu ogsoonahay dabcan ama guud ahaan shaygaasi haddii tayadiisu ay xun tahay ama ay caalamku heertayeed bay leeyihiin ama waxa la yidhahda standards ay standard ka hooseyso guud ahaan waxaynu ognahay in ay muxuu ahaa qofkii bini'aadamka wax yeeli karto waxaa kaloo iyaguna jira wixii waxyaabo soo gelaya wax la yidhahdo safety ama food safety cuntadii oo muxuu ahaa bini'aadamku cunayay ama dawadii ha noqoto oo meeshii lagu sameynayay ay noqoto wax la yidhahdo contaminated ama uu soo galo shay muxuu ahaa waxyeelaya oo bedelaya muxuu ahaa shaqadii loogu talagalay qofka bini'aadamku uu u cuni lahaa dawada ama cuntadaas waxaa jira habab lagu cabiro cuntooyinka iyo dawooyinka dalka la keenayo waxaana dunida u xil saaran hubinta cuntada hay'ado ka diiwaan gashan qaramada midoobay sida ISO hakab iyo xalaal kuwaasi oo aan sida la hubo ganacsatada Somaliland keena raashinka iyo dawooyinku aanay soo marin waa kan xogayaha ururka wacyigelinta badqabka cuntooyinka Cabdidaahim Xuseen Awdiiriyo oo sharaxaya qaabka dunida loo hubiyo inay cuntooyinku tayo leeyihiin iyo inay bilaa tayo yihiin e-codeskani waxa weeyaan waa barnaamij ay hayso guddi loo yaqaano Cordaga's Alimentary Committee guddigani
hay-adda faw ee qaramada midoobe cuntada ayuu ka farcamay 1961 dabayaaqada sanadkaas ayaa la aasaasay. waxaa kaloo hay-adani ku ayday ama ku biirtay hay-adda WHO ee caafimaadka qaramada midoobe oo iyaduna adeecday 1962. guddigan marka maxay qaabilsan yahay? wuxuu qaabilsan yahay e-codeskan ama food additive-kan inuu magac u bixiyo, in uu kooxeeyo. matalan xidhma u socda mukhtaaro, matalan 100 buu ka bilaabay inta badan 100 ilaa 199 waxaad ku jirtaa food color, waa sibaaq ama midabun buu sameeyaa. waxaa ka bilaabanaya 200 ilaa 299 mukhtaaro wuxuu ka hadlaa food preservatives. marka hay-addaas ayaa gacanta ku hayso, waana amnigooduna way sugtaa. marka halkaa inagu dad muslim baynu nahay. marka 3 ummadood oo muslimiinta ay ka mid yihiin, yuhuudda ay ka mid tahay, iyo qolo la yidhaaho quudayaasha oo taqaanad qolada milaa wadamada Aasiya u badan. 3 qolo waxay leeyihiin mabaadii dadku isku cunto maaha. waxaan leenahay islaamka haddaynu nahnay ama muslimka aynu adeegsan wax la yidhaaho xalaal boorigaram oo aynu dadka Soomaaliya doonaynaa inay aad u ogaadaan iyo ganacsatanayna. xalaal boorigaramka waxa weeye codeskan guddiga aynu soo sheegnay inoo hayaan waxaynu eegnaa cuntada food additive-kani 3 barnaamij buu soo galaa caqiidahan islaamka. markaynu eegno qaar waa xaaraan, qaar waxaynu odhanaynaa waa xalaal, qaarna waxa weeye waa mushabbah. mushabbahu muxuu yahay? shaygani shaki baa ku jira xalaalnimadiisa. marka waxaa la eegayaa shaygani asalkiisa xaguu ka yimid. shaygani asalkiisa halkuu ka yimid. matalan hadduu ka yimaado dhirta, waxaad odhanaysaa shaygan waa xalaal oo geedu wuxuu leeyahay sidaynu ognahay. hadduu ka yimaado shaygani asalkiisa waxa loo yaqaano maxay xoolaha aynu quudano aynu qalano maanta naqaan, waxaan eegaynaa xoolahan talo ma ahaayeen kuwo shuruudihii islaamka ee gowraca ma waafaqsan yihiin. haddii ha noqdo xalaal buu noqonaya. hadduu shaygani kaluun ka yimid waxaad odhanaysa waa xalaal. hadduu ka yimid xoolahan ay nimankan Christianity ama dadkan reer galbeedku isticmaalaan doofaarka, waa kaynu inagu marka barnaamij u sameeyno waan iska ilaalino. haddaba xalaal boorigaramkani waxaan doonayaa 3 arrimood inaad dadka ummadda Soomaaliyeed halkan fariin u dirno. waxa weeyaan food additive-kani waa 100 ilaa 1000 iyo hodho inaad maanta intaad mimid soo qaadataa waqti buu ka luminay. waxa kaloo dhacda dadkeena markay dibadaha aadaan in ay arkaan ay shaki galaan, marka isweydiin cuntada ma xalaalba marka cunto badan iyagoo gaajoonaya inay ka tagaan. marka kuwaas aynu yareeyno waxaan sameeynaa 3 shay haddaad ku aragto mukhtaaro cuntada guudkeeda ee dahaadha ama qasacadaas, cuntadaas waxaynu odhanaynaa tayadeedu aad u fiican. haddaad ku aragto xalaal localka dadku ximooda inaad Soomaaliya dinaan dad muslim beenan waa ruux sax, laakiin meena dad cuntadooda iyagu soo saar waa may weyn. marka waxa weeye cuntadan inoo imaanay haddaad cuntada iibsan guudkeeda aad ku aragto shaambada xalaal oo urur ah oo diiwaan gashan oo la yaqaano qaado, macnaheedu marka shirkad oo wadan ku taalo guudka kuma qoran karaysa xalaal, macnaheedu ana huba maaha ka waa tayada aad bay u fiicantahay caqiidahan. haddii hay'ad baa jirta la yiraahdo HACCP oo loo soo gaabiyo Hazard Analysis and Critical Control Point. hay'adani asalkeeda NASA waa taqaana, hay'adan cirbixineynta Mareykanka ayaa qofka cirbixinaha markuu dee cuntada halka marka lagu cunayo marka zero gravity meel ah marka la tagayo the food safety-ga waa way kala duwan. marka hay'ad halkaas ay ka aasasantay. marka haddaad ku aragto HACCP cuntada ku qoranta waynu qaadan karnaa. waliba HACCP-kani mukhtaaro waa hay'adda islaamku haddii gaar muslimiintu ay ku xiran yihiin. waa hay'adda ay sheegta xaddiga ugu yar ee cuntada ee xaaraan soo raaci karaysa. ama matalan imaga gaaladu warshad baa soo saartay imaga hilib lo, haddana gaaladu waxay sameynayaan doofaarkii bay qalayaan. neefkani xalaal buu ahaa, shuruudii islaamka waa loo qalay, laakiin maxaa lagu daray wax la yiraahdo maxay doofaarkii oo xaaraana. marka muxuu noqonayaa shay xaaraan buu noqonayaa.
marka hay'adda hakab waa hay'adda ka caabisa xaddiga ugu yar ee xaaraan ama nijaaso waa taqaan wasaq ay gaari karayso cuntada marka hakab haddaad ku aragto cuntadaas waxaad oranaysaa tayadeeda aad bay u wanaagsantahay ka saddexaad waxa weeye hay'ad la yiraahdo ISO oo loo soo gaabiyay International Organization for Standardization hay-addan iniyo waxa la aasaasay 1947 hay-addani markaa waxay fadhigeedu yahay Geneva Switzerland waxay hay-addani qaabilsan tahay inay diyaariso shuruudaha nidaamka amniga cuntada markaa shuruudaha ayay haddaad ka aragto iibso markaa saddexda haddaynu aragno waxaynu oranaa mukhtaaro waxaynu oranaysaa cuntadaas waa cunto tayadeedii hagaagsantahay waxaa jira shirkado iyagu gudaha Soomaaliland ku iibsada raashinka iyo sharaabada dhacay ee dalka yaala iyagoona dib uga iibinaya bulshada sida uu sheegayo wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo isagu sheegaya inuu la kulmay dhacdo ku saabsan arintaasi dhamaanteen wada dareensanahay in maanta alaabta inoo timaada aynaan ka warhayn xogo fara badan oo nin walba halkan fadhiya gabadh waliba ay og yihiin waa jiraan waa kuwa aynu doonayno degdeg inaynu runtii aynu uga guuleysano shariicadeennuna inooma banaynin oo waxa weeye nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa man qashana falaysa minna qofkii waxa weeyaan waxaan tayo lahayn noo qariya naga mid maaha marka waa arin runtii xagga iimaankaaga iyo diintaada soo gelaysa haddii aad waxaad ogtahay tayadeedu inaad xun tahay aad ummadda u keento waana ta koowaad ee ay ahayd haddii iimaankeenu inugu filan yahay hay'addan looma baahan kareen laakiin waxaa inoo muuqata inaanay sidaa ahayn waxaan runtii tusaale yar gaaban anigoo aan jeclayn inaan ku dheeraado waxaan soo galay bakhaar aan wax ka iibsan jiray waxaan arkay sharaab fara badan oo dhinaca yaalo oo daadsan waan weydiiyey oo aan iibsan jiray wuxuu igu yiri sharaabkan intaas way xumaatay oo waan maxaad u daadin weyday horta anigu waxaan ku celinayaa shirkaddii markii hore ay keentay laakiin dadka ila mid ah bakhaaradu kuma celiyaan shirkad kale jirto wixii xumaaday bay iibsataa iyadu wixii xumaaday bay iibsataa oo maxay marka xaygeeysaa meel kale geeysaa marka aad baan la yaabay isagoo markaa nin wanaagsan buu ahaayo calalaqal shirkadda ka iibin maayay tii u keentay ku celinaya marka waxaan ku maxay bahalaan u xumaadeen dheedkoodu miyuu dhacay wuxuu sharaabku waxa weeyaan ninkii naga iibiyay waanu ka cabanno waxaan ku wadniyo baalku 6 bilood buu ku dhacayaa markiiba de isagoo bakhaarada ku yaal والله waliba sidaasaan shirkadii aan ka soo iibsanayay aan ku iri 2 bilood igu kordhiya xagga shaambada sidaas aan ku iri 2 bilood igu kordhiya xagga shaambada isagii aan u sheegay oo waliba yaani waxa weey isku amaanayo le waxaan ku soo guuleystay inaan 6 bilood ku dhici lahaa laakiin aan 8 bilood idinku soo qoro billahi alaykum horta maalintii baan joojiyay bal calala qaliilan intaan garanayo sharaabka maxaa dhahay la iibsado waxa isaguna jira urur isku xil saaray inuu bulshada ka wacyi geliyo sidii ay u heli lahaayeen cuntooyin tayo leh waxaana ururkaasi gudoomiye u ah abwaan Saleebaan Baashe oo kula kulanay magaalada Hargeysa waxaanu nooga warramayaa sababta ku dhalisay aasaaska ururkan la magac baxay ururka wacyi gelinta badqabka cuntooyinka horta ururku imanka wuxuu aasaasan yahay muddo 2 sano ah intaan si gelin ururkii aasaaskiisa waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Universal oo nagu soo booqday wanta xafiiskayaga aadna aan u soo dhaweynayno markaan soo noqdo su'aashaada taariikhda ururku aasaasan imika waa 2 sanadood waa urur kamid ah ururada ku hawlan adeega bulshada khaasatan waxyaalaha la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha intooyinka iyo looniga dibadda laga soo dhoofsanayo iyo dhibaatada dadkeena ka soo gaadha oo aanu ka wacyi gelino waayo dadkeenu la xukan abaarmoog bay ka yihiin xaaladaas oo xuba kala ma socdaan marka ururka waxa sababaha keenay inaan aasaasnay ugu weyn waxa koow ka markaanu aragnay dhibaatooyinka sidaan soo sheegay cuntooyinkaasi geysteen oo inta yadan imika tiimkan imika aad maanta la kulanteen ku hawlan
howlaha ururku badidoodu amba dhammaantood waxaan odhan karaa waa macallimiin waxaanu aragnay ubadkiyo qalqaaliyey oo ay u sababtahay cuntooyinkan ay cunayaan qaar qalafsanaaday oo dhiga adeeg laga soo taagay oo yar ay cuntooyinka sababeen dhiikarka macaanka xasaasiyadaha dhibaatooyinka aan la soo koobi karin oo cuntooyinka ka dhasha waxa taa dheer oo dhinac taala qaar baa waxay leeyihiin ba dhibaato diiniya oo de xaaraan ba wax yaala xaaraan moodaad xaaraan ku jiraan sadraadeed waxay noqotay xaalad aan laga adkeysan karin lagu abuurtay damaq kalifay inaanu sameeyno urur bal ummadda waxaan ka wacyi-geliya oo u sheega dabadeed horta sababta dhalisay ururka sidaas ayay ahayd muddadu howlayahayna waa intaa waxaa intaa dheer muddada aanu jirnay waxaanu qabanay waxyaalo fara badan inkastoo de wax waliba marka aan bilowga tahay aanay dee sidii la rabay u dhaqaaqayn haddana waxaanu soo saarnay buugaag ka hadlaya e-codiska oo ah astaanta sheegaysa cuntooyinkan iyo waxay ka samaysan yihiin iyo kuwa xaaraanta iyo kuwa dhibaatooyin kale iyo kuwa aan lahayn ee la isticmaali kare aan ahayn waxaba yaraatee dibindaabiye ay dee ku jirin iyo miqyaasaadka ka sheekaynaya wax lagu cabiro oo iyaguna qudhoodu khalkhal weynu ku jiro waxa kaloo aanu soo saarnay riwaayado la akhristo marka la doonana lagu dhigi karayo masraxa oo suugaan ballaaran xambaarsan waayo ummaddeenu waa ummad suugaan ku noola taasoo ka wacyigelinaysa dadka waxyaalahan aanu sheegayna dhammaantood waxaanu furnay webpage isaguna ku howlan waxyaalahan oo aqoonta waxaan la xidhiidho oo dhan xag diiniya iyo xag cilmi iyo xag walba loogu soo gudbinayo bulshada sidaasay tahay waxaanu kuu sheegay inaanu weli uun dee ku jirnay haanigunbay ka tolantaaye alkunkii hoose uun laakiin ha dhowto intaa iyo ka badan inaanu bulshada gaadhsiin doono ayaa de markaa aan waxaascalamkaasaan ku howlanahay qaar waanu soo saarnay qaarna waanu soo saari doonaa haddii ilaahay ka dhigo daawadayaal barnaamijkii waayaha nolosha toddobaadkan intaasuu ku idil yahay tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa anigoo mukhtaar ismaaciil cali sidaa iyo nabadgelyo